gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo injineer Faysal Calwaraabe ayaa dhaliilo xoogan soo jeediyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland kadib markii qalqal amni ku yimaadeen nidaamka goobta beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa. Gudoomiye Faysal waxa uu ku soo hadal qaaday walaac uu hore uga muujiyay taliya dabagale. Gudoomiye Faysal ayaa sidoo kale ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliland Mudan Muuse Biixi Cabdi. madaxweynuhu shalay tamarku hadlayay wuxuu sheegay iyo dalaaqay madaxweyne oo jaaray inaan madaxweynaha bada ku sheegay bal waxaan ka xumay madaxweynaha kelmadda uma oran malawi ugu riyoodaan leeyahay kelmadda ma oran بدر محي الدين حسين بدر واحد تلفزيون كعالمي جاي سمني TV Hargeysa.